kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da oon toddobaadkan ku eegayno isku dhacyada qabaa'ilka iyo dilalka ku salaysan aanada ee weli dul hoganaya Soomaalida gaar ahaan gobollada dhexe. gobollada bartamaha Soomaaliya oo ah dhul qani ku ah taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida waxaa dhinaca kale loogu dowgalay colaado sokeeye iyo aana qabiil oo muddo dheer ka dhex jirtay bulsho dhaxal iyo dherer wadaag ah. isku dhacyada qabaa'ilka iyo kala aargoosashada ayaa dhaawacyo waaweyn ku reebay samayska iyo dunta Soomaalida, taasoo ka hor istaagtay horumar kasta oo ay bulshadu gaari lahayd. dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee aanooyinka qabiilka la xiriira waxaa ka mid ahaa bishii Sebtembar ee sanadkii tagay ee 2023 waxaa magaalada Gaalkacyo lagu dilay dhakhtar da'yar oo lagu magacaabi jiray Zakariya Cabdi oo aana qabiil loo dilay, waxaana ka dhashay in dhaqaatiirta magaalada Gaalkacyo ay shaqo joojin 3 maalmooda sameeyaan aaskiisa kadib. bishii December ee sanadkii tagay rag hubeysan ayaa 2 wiil oo walaalo ah oo kala ahaa dhakhtar iyo macallin dugsi ku dilay gurigooda degaan qiyaastii 40 kilomitir bariga kaga beegan magaalada Guriceel ee gobolka Galguduud. bishii Maarso ee sanadka 2024 magaalada Gaalkacyo waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Cali Ciid. bisha May 17keediina sanadkan 2024 maleeshiyo beeleed hubeysan ayaa wiil yar oo 12 sano jir ah ku dilay deegaan hoostaga degmada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud. toddobaad ka hor dilka wiilka waxaa isna dil aad looga falceliyey oo baraha bulshada lagu faafiyey loogu geystay agaarka degmada Galdogob nin la sheegay inuu dhimirka ka xanuunsanayay oo ay jihadu ka qasantay. inkastoo tallaabooyin loo qaaday sidii dilalka loo yaray lahaa, haddana ma muuqdo isbeddel weyn oo ka dhashay gaar ahaan dhulka miyiga ah. Cabdulaahi Saciid Faarax waa gudoomiyaha golaha guurtida degmada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud oo ay dhibaatada aanooyinka qabiilka ku soo noqnoqotay. qadka taleefanka ee Cabudwaaq ayaan kula xiriiray. waxay nagu hayaan waxaan caqli bilaaban qaadan karin oo caqliga bilaadanka ka fog dad iska dilaya aanooyinka qabiilku waa jiraan. howlahaas dhibka badan oo aad moodid haddana in sidii dowladnimo iyo awood dowladeed uga qaban jirtay loola yahay oo aan hadda ayaan booskeedii gaarsiisnayn baa ka jirta meeshaan hadda aan ku nool nahay oo degmada Cabudwaaq iyo wixii la hareera ah oo hadda gobolada dhexe oo dhanba waa wada mid wax hadda kala bedelan oo kala macno badan inta jira. Cabdulaahi Saciid Faarax ayaa ka waramaya nooca dadka aanooyinka qabiil ay dhex maraan. dadka Soomaaliyeed iyagoo kulligood walaalo ah oo dad wada dhashay haddana waxay ka sii xajiraan gobolada dhexe dadka degan waa dad wada dhashay kulli abtigii iyo seedigii kulli waxa bay isku yihiin ehliyada oo islaamnimada ka sokaysay wadaagaan dad kulligood isku wada xiran weeye oo qof walba qofka kale wax la yahay weeye. wax aan la yaabnay oo aan weligeed dhicin oo markii hore iyadoo la biridayo oo dadka dhextaal laga xishoon jiray baa waxay yihiin caruur yar yar ah oo 10 jir aan gaarin 4 jir 5 jir 6 jir haween la leynayo oo inta waliba la qabto xabad madaxa lagala dhacayo. waxay ka dhacaan gobolada dhexe hadda wax ku cusub bulshada Soomaaliyeed iyo gobolada dhexe iyo maqalka bini'aadanka wixii noogu dambeeyo aan la yaabnaa waxyaalahaas ka mid ah. sidoo kale waxaan qadka taleefanka ee Cabudwaaq aan kula xiriiray Iraado Maxamed Cigaal oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee Cabudwaaq. waxay ka waramaysaa dareenkeeda ku aadan aanooyinka qabiilka. awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan kugu salaamayaa Maxamed Caali Xasan iyo dhammaan bahda VOA waan salaamayaa. saamaynta ay nagu leedahay lama soo koobi karo. annaga haddii wiilku wax dilana dhibaatadii gurigii bay gaaraysaa. gabadhii waa hooyo baa dhashay, kii kaloo muxuu ahayto la dilayna waa hooyaa dhashay. marka kolley saamaynta ay nagu yeelato haween ahaan wax lasoo koobi karaa maaha. waxaan saron karaa wadnaha annaga ama beerka annaga maalin walba qayb baa go-aysan saron karaa sida maaragtay colaaduhu ay u socdaan markaan fiirino. Iraada ayaa ka waramaysa foolxumada kala aargoosashada iyo beegsiga dadka indhaha u ah bulshada. wiil maantay noolaa oo deegaankii joogay oo shaqaynayay oo araha oo kii wax qaban lahaa deegaanka ku qaban lahaa ayaa muxuu ahaytay waxaa la suubinayaa mid baa wuxuu leeyahay xilliga noocaasa ama walaalkii la dilay ama haddii lagu ninkaanu ma dilin waxba uma geysanin. marka dhacdooyinka annaga na damqa oo aniga khaasaan damca 1 2 3 maaha aad bay u badan yihiin. waxa weeye qof baa wax geysanaya, qofkii markii wax geystay waxaa leeyahay qofkaasi uma qalmo hebel baa leeyahay.
sidaa daraadeed waxaa la raadsanayaa shaksiga keliya oo dad laga yaaba hogaamiye inuu yahay oo ganacsado ah oo boqolaal qof biila iyo wixii lamid ah ama madaxaa la raadsanaya. laguma qancayo qofkan gacan ku biiglaha asoo inta geysa asaga in la raadsado. waxaa lagu qancayaa qof muhiima oo bulshada indhaheediya in la helo. axmed ciise falagle waa wasiirkii hore ee warfaafinta ee galmudug, haatanna waa la taliyaha madaxweynaha galmudug ee arrimaha bulshada. waxaan weydiiyey dhibaatada ay arrintan kale argoosiga ku hayso gobolka. xanuun wallaahi waxay nagu haysaa aad u sarreeya, weliba xanuunka waxaa kasii xoog badan oo sii xanuujinaya. qaababka dadka loo waxyeelaynayo ma aha qaababkii dariiqooda la yaqiinay. dadku waxay u diriri jireen beelo iyo aana qabiil iyo haatan waxaa socday 80% iyo ka badan waa waxaan lagu tilmaami jiray aana qabiil. waa bahalo haddii ilaahay ku dhow yahay dad la bireynayo, wax loo bireeyay aan la aqoonin, qaab wajahan oo jahawareerina weeye. marka jahawareerkaas ayaa hadda jira oo ka xoog batay wixii dhaqanka ahaa ee dagaalka qabiilada. wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiiqow ayaa aaminsan in al-shabaab ay ku lug leedahay dilalka soo kordhay. waxaa aad u soo kordhay weji ku cusub oo ah in nimankan argagixisada al-shabaabka ay faragelin badan kusoo sameeyeen qabaa'ilaadka si ayagu ay ugu badbaadaan dhexdooda. oo maaragtay arrintaas oo aad waayihii ugu dambeeyey shirarada amniga iyo lagu falanqaynayay. colaadahan beelaha dhexdooda ah waxaa sii huraya tabashooyin aan waxba laga qaban iyo dadka oo markii ay cadaaladda waayaan doonaya inay iyaga gacantooda ku fuliyaan, sida uu qabo cabdiraxmaan daahir guure, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle. laakiin waa ogta hadda meeshaan nimanka nabadiidka 15 sano haysteen deegaankaas oo dhan, dhulkaas oo dhan mataqaanaa markii ayagu gacanta ku haayeen dadka ayaga dili jiray. dadku marka hadda waxay fursad u heleen inay xor noqdaan, ay isdhex galaan, ay qoryihii ay kula dirireen shabaabka haystaan. dowladuna hadda weli waxay la diriraysaa argagixisada weli ma amnigii si toosa meelaha qaarkood ugama fargelin. laakiin dagaalka qabiilka waxay ugu yaab badnaayeen markii deegaanka shabeellada dhexe meel ka mid ilaa 40 guri la gubay aan tegey, oo aan u tegey farmashiyihii, dukaankii, ganacsigii, raashinkii oo dabku uu baabi'iyey, oo dadkii deganayna ay banaanka ka joogaan. tiro kooban oo dhalinyaro oo ay waxaa sameeyeen, sababtay u sameeyeen ayna aqoonin. way iska tahay hab qabiil dhacdo markay dhacdane dadku weli lama falgelin inay dacwadaan, ay maxkamadaha ee saldhigyada tagaan, inay gacmahooda sharciga ku fuliyaan, ay rabaan kala aarsadaan ayagoo reeraysan. colaadaha beelaha ee Soomaaliya ayaa loo kala qaybiyaa kuwo siyaasadii ay ka dambayso iyo kuwo ku salaysan daaqa xoolaha iyo hanaanka dhaqanka ee bulshooyinka wada nool, sida uu sharaxayo Professor Yaxye Sheekh Caamir oo aan qadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Nairobi. waxaan isdilka Soomaalidu waa wax weligeed soo jiri jiray oo aana qabiil iyo isku dilaan, jid iyo xoolo la dhacay iyo ceelal iyo waxaasay ahayd. saameynna kuma lahayn magaalooyinka, saameynna kuma lahayn siyaasadda. si fududa loo xalli jiray oo odayaasha xalli jiray. qaanuun dhaqanna waa jiray oo dad bermageytanayna oo la taabana waa jiray. hadda wadcigii waa isbedelay oo horta isgaarsiin waxaa timiday wax hadda baadiye ka dhaco beledka loo soo rari karo. wax beled ka dhaco baadiye loo raraayo oo laba qoloo baadiye ku dagaashay beledka colaadooda ay magaalada ka bilaabanayso waa dhacdaa. kama maqna marka hadda waxaa jiroo dhan aana qabiil oo siyaasad ku salaysan waayo. marka waxaa qofka aanada loo dilay qofuu dilay keliya ma ahan, waa lasii buunbuuninaa, waxbaa la badinaa. marka waa wax oo la maalgelinaya dhinac haddaad fiiriso oo magaalooyinka ay ku dhiirigelinayaan. waxaa kaloo qayb weyn aad u weyn ka qaato baraha bulshada oo dhalinyaro aan aad u bislayn ay samaysteen oo xuriska naqdo meel kasta laga dhegaysanayo oo qofkii la gelinayo markaas caadifad qabiil. colaadaha waxay burbur u geysteen nolosha qoysaska iyo bulshooyinka wada nool. Professor Yaxye Sheekh Caamir ayaa qaba in jahliga uu sabab u yahay aanooyinka qabiilka, islamarkaana doorkii bahda waxbarashada uu meesha ka maqan yahay. markii hore oo gacanka ka hor waxaa jiri jiray maado la yidhaha civic oo iskuulada lagu dhigi jiray oo qofka wadaniyad lagu abuuraayo. wadaniyadaas lagu abuurayo wax badan ay ka reebaysa. waktigii kacaanka dadka maadadii oo civic la dhihi jiray waa laga reebay, waxaa lagu bedela maado kacaan la yidhaha. qofku dowladdaas inuu daacad u dhaqdo
iyada lafteeda daacadii markii dambe dowladda loo naqanaya qabiil isku bedesho ogtahay hadda bahda waxbarashada ama iskuulada laguma dhigo qabyaalad dhibka ay leedahay iyo inay dadka wax u tareen iyo inay waddanka rigaadanayso laguma dhigo waa fiicnaan lahayd in xataa ardada intayna ummadaba u gudbin in ardada loogu daro maadadaas daan loogu dari karin iskuulada in ardada ninba guriga ka yimid ninba gobol ka yimid loo sharxo oo la yidhaha waddanka wax qabyaalad ilaaha ka jiro mustaqbalka idin saameynaya dhibkaas waaye ka hortaga haddii xataa bishii hal cashir ardada dhan loogu daro oo xataa dad bartiya loogu yeeray jaamacadaha iyo dugsiya sare iyo xataa dugsiyada dhexe ardaygu masajka uu qaato gurigu kula naqanaa oo leeyahay qabyaalada la sheegayo iskuulka lagu soo sheegay wax xun waaye in laga carraa fiican midnimadii dadkii wax u dhibeen lama sabayn weli taas waxaa laga rabaa in dowladdu ama bahda waxbarashadu ay qorshayso ay ku darto oo ardayga maanta aad galaas ugu tagto waa yaqaanaa ardayga dhinacaysa fadhiya qabiilkiisa jaahilnimada waxay tahay inaadan ogeyn waxa dhacayo iyo waxaan dhacayo sababta ay u dhaceen haddii ay tahay qof dili keliya odayaalaha ku baxayo horaa laga xalinayo laakiin qof kale ka dhex hadlaayo oo asiga qofkaa kula hadlaayo qof kalea ku dhex jiro kasii hadlaayo oo siyaasadeed marka in deganaan la-aan ay dhacdo soomaaliya colaadaha meertada ah ee soo noqnoqda ee soomaaliya waxay ku bilowdaan cadaalad darro la iska tirsanayo ha ahaato mid dhab ah iyo mid qofka uu iska dhaadhicinayo taasoo inta badan ka shidaal qaadanaysa muranno taariikhi ah ama colaado soo jireen ah oo ku salaysan deegaanka biyaha iyo daaqa xoolaha marka xiisaduhu ay meel sare gaaraan waxaa soo xoogaysanaya qabaa'ilka la isugu nasab sheegto taasoo keenta in dadka ay u degdegaan argoosiga aan waxba xirinaynin abukaati cabaas cumar xuseen oo ka mid ah qareennada soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ka waramaya cadaaladda iyo doorka ay cadaalad darrida ka qaadato hurinta colaadaha iyo aanooyinka qabiilka waxay sii horisaa cadaalad darrada colaadaha waxay abuurtaa nacayb lambar 2 waxay sababe in aan xal waara laga gaarin isku dhacyada qabiilada ama qoysaska 3 in amniga uu faraha ka baxo abukaati cabaas ayaa ka waramaya inay dhacdo in qof cadaalad raadinaya uu ku kaco cadaalad darri ka weyn tan loo geystay ama uu ka tabanayo cadaalad darri ayagoo tabanaya ayay waxay ku kacaan cadaalad darro midaas mid ka sii badan oo ka saameyn badan bulsho ahaanba waxaan rabaa in aan kula wadaago Mr. Colaad laba misaal mid waxay ka dhacday Jowhar inaad la socotaan ayaan u malaynayaa in la soo qabtay 2 eedeysane oo lagu eedeynayay inay cunug yar dhibaato u geysteen la soo xiray saldhig lagu soo xiray maxkamadii ayagoo la horgeeynayo aabihii dhalay cunuga oo qoray inta soo qaatay ku dilay xaruntii dowladda dhexdeeda taas waxa waaye in qofkii hay-adihii dowladda ee cadaaladda fulin lahaa in uu qofkii hareer maro asigoo cadaalad darro tabanayo oo asiga gacantiisa ku fushado dhibkii loo geystay dhib ka weyn inuu asigana geysto sidoo kale waxaa misaal labaad ah ninkii maxkamadda la saaray ee taliyihiisii ku dilay balcad cabdulqafaar cabdi wardheere oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ee ku nool gobolka Virginia ee duleedka Washington ayaa qaba in colaadaha iyo kala argoosiga ay soo jireen ahaayeen laakiin hadda ay wax cusub ku soo kordheen horta sidaad ka warqabto Soomaalidu sideedaba dadka wada degan markasta waxaa ka dhaxeeya daaqa iyo cabitaanka ceelasha iyo dhulka marka inta badan waxa weeye wax weligeed qarniye soo jiray oo dadku ay isku khilaafsanaayeen ceel laga cabaye iyo daaqsin iyo waxyaabo lamid ah marka waxaa hadda uu kusoo biiray 2 shay baa kusoo biiray aanada oo sidii hore aad moodo inay ka duwan tahay oo dadku ay ka dhigeen wixii wax cadaawad ah awal ma ahayn waxay ahaan jirtay awal qolaa wax kala diraysa ama mag baa la kala qaadanayaa ama waa la isu qisaasayaa wuxuu ma dhib badnaan jirin hadda waxaa kusoo biiray in maadaama ay dadkii wada degan yihiin oo markasta wax kala gaarayaan in miidiyadii iyo la duubo oo wixii la fidiyo oo la buunbuuniyo oo meeshii awal odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo dadku uu dhexgeli jiray oo haddiiba la xakamayn jiray hadda waxay noqotay wixii global bay noqotay inay caalamka oo dhan ay ku fido marka sida la moodayana ma aha oo dadku cadaawadi kama dhaxayso ogow waa wax un biyo aano iyo daac saddexdaasay isugu imaanaysaa weligeedna intaasay joogtay
wax weynna ma ahayn, waana la xakamayn jiray, dhaqanka soomaalidaana ku fillaan jiray. nasiib darro hadda waxaa isku soo aaday qof reer baadiye ah oo garabka midigtaana qori u suran yahay, bidixdana telefoon ku haysta, caawa alla waxay u taagan tahayna aan ka warqabin, wuxuu rabuu markaa ku samaynaya. marka intaasaa ku zaa'ida maahe, wax soomaalidu waa qarniyo sidii ay u noolayd weeye, wax iska bedelayna ma jiraan dhankaas. marka ma muuqataa door maamulada iyo dowladda federaalka ay uga bannaan in arrimahan la xakameeyo oo laakiin laga gaabiyey oo aqoon-yahanka u muuqanaya ma jiraan? dowladdu rool bay kula hayan jirtay, weligeed dowladdaa dhex geli jirtay ilaa iyo isticmaalkii hadda dhulkaas mudug la yidhaahdo, talyaanigii baa dhex geli jiray xataa, iska daa markii dambe oo dowladaha noqono xorownay oo dee laysmada dili jirinba, oo daraawiish baa la keeni jiray, ciidan baa la dhex dhigi jiray, iyagaa kala waxayn jiray, markaasaa magta iyo odayaasha dhaqanka iyo waxaasi geli jireen. laakiin ka hor xataa isticmaalku wuxuu samayn jiray, wuxuu oran jiray idinkuna daaqa dhinacaas ha soo dhaafina, idinkuna dhinacaas ha soo dhaafina, oo waa la kala deganaa. wuu yiqiinay isticmaalku sida beeluhu ay u kala degan yihiin. dowladdu markay timidna sidaas oo kale ay ahayd, waxaa xoolaha loo kala celin jiray, magtaa loo kala qori jiray, maxkamadaha la geyn jiray dadka qaarkood, odayaasha dhaqankuna mar kastaba iyagaa sal u ahaa, iyo culummada iyo waxaasoo dhan. marka wixii oo dhan waa jiraan, isma bedelin. waxaa soo kordhay oo keliya dowlado yaryara oo daciifa oo laftigoodu qabaa'il ku dhisan. marka dowladdu hadday qabiil ku dhisan tahay, iyadiba marmarka qaarkood ka xishoonaysa oo la dhahaysa annagu waxaan ma dhexgeli karno, beelahu ha xalliyaan. masalan hadda galmudug iyo puntland oo kale, waxyaabo badan oo xakamaynaya waxaa weeye beelihii iyagu ka koobnaayeen baa hubaysan oo hubka haysta, oo dowladdii ka hub badan. marka dowlad goboleedkii ma geli karto, dowladdii dhexana de waaba garanaysaa tabarteeda iyo intay la eg tahay. marka markasta dowladda howlkeeda waa loo baahan yahay, laakiin nasiib darro waxaa weeye beelihii baa ka awood badan dowladdii. ugu dambeyntii cabdulaahi siciid faarax, gudoomiyaha golaha guurtida degmada caabud waaqe ee gobolka galguduud, iyo iraado maxamed cigaal, gudoomiyaha ururka haweenka ee caabud waaq, ayaa soo jeediyey baaq ku aadan in colaada la joojiyo gobolkaasi. ana aada iyo aadka ugu mahad celinahaya barnaamijkaas caawa mataqaana ila wadaagtay. waxaan ugu baaqi lahaa ilaahayna ha loo noqdo, caqliguna ha shaqeeyo, dadka isdilahaya waa dad walaalo ah, waa dad diinta muslimka walaalo ku ah, waa dad darisnimada walaalo ku ah, waa dad seedi iyo adeer iyo wiil iyo abtigiisa intii hore oo na gaadhay. ilaahay ha naga cafiyo, ilaahay ha naga cafiyo. inta dambaan saba qabano, caqliga aan ka shaqaysiino. dadkaani ma aha dad kala guuraya iyo dad kala tegaya iyo dad maaragtay meel kala aadaya iyo dad si kale isugu yimid. waa dad darisnimadii iyo diintii iyo walaalnimadii iyo dhulkii iyo degaankii ka dhexeeyaan. waxay naga khasaarayna aynu mataqaanaa ilaahay uga tababkeena, waxa dambana aan isaba qabano. sidaasaan ugu baaqaya. waxaan ugu baaqayaa dhammaan gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, arrinkaas inaan iska kaashano, inaan wacyigelin badan ka suubino, inaan isku xirnaano, in aan bal atleast qaab aan maaragtay wacyigelin, hadda anagu qoriga afkiisa ma qaban karno, laakiin waxaan suubin karnaa inaan wacyigelin suubino, inaan goobaha colaada aan maaragtay ka jirto aan tagno, inaan wiilashanada wacyigelino, in aan bal u sheegno war qofku hadduu gacan ku dhigla asaa gacan ku dhigla ahay, keen wax noo taraya kan wax noo taraya ha naga maran inaan idhaahno. aad intaas ugu baaqaya. dhegaystayaal, waxaa naga xusuusinah inaanu la xiriirnay wasaaradaha warfaafinta, arrimaha gudaha iyo cadaaladda iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya si aan arrimahan wax uga weydiino, hase yeeshee aanaynu suuragelin. intaas ayaan kusoo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay isku dhacyada iyo kala aargoosashada qabaa'ilka soomaaliyeed, gaar ahaan bartamaha soomaaliya. barnaamijyadeena soo socda waxaad ku dhagaysan doontaan iscafinta iyo doorka ay ka qaadan karto xalinta mushkiladaha bulshada. inta ka horeysa waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.